Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Samsam Xasan oo idin leh kusoo dhawaada channelka Nolol Wanaagsan. Maanta waxaan ka sheekayn doonaa qaybteennii labaad ee sheekadii ninkii qaxoontiga ahaa iyo laantiisii dahabka. Takar waxaa loo kordhiyey mushaharkii. Takar wuxuu ka shaqaynayay shirkadda muddo 2 sano ah. Takar dhalinyartu waxay kula kaftami jireen ma guursatay iyo goormaad guursanaysaa, oo badanaa caaday noo ah amaba la weydiiyo qofka dhalinyarta ah een weli guursan. Maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacay inay wada shaqaynayeen in walaashii la aroosayay. Kadibna Takar baa ku casuumay arooskii walaashii. Takar baa lagu casuumay sooray arooskii gabadhii ay walaalo ahaayeen. Takar oo ahaa nin calafdoona indhaynna ku jira ayaa arooskii ka qayb galay. Takar wuxuu indhaha ku dhuftay wuxuu hablihii indhaynayaba inantii milxiisada ahayd ee aroosada u milxiisada ahayd. Kadib Takar inantii habeenkii aad buu uga helay. Inanta magaceedii wuxuu weydiiyey inankii ay saaxiibka ahaayeen. Inanta magaceedii Hodan baa la yiraahdaa ayuu ku yiri. Habeenkii arooskii xilli dambe ayay gaadhay, xilligii rawaxaadii oo xilli aad u dambeysa ahayd. Takar iyo saaxiibkii inantii bay daba galeen, waxaanay arkeen gurigii ay galaysay habeenkii si ay gurigeeda u soo gaadaan. Xilli dambe uu Takar hoyday habeenkaa. Takar hurdo dheer buu galay, aroornimadkana shaqaa sugaysay. Waxaa sugayay inuu saxeexo heshiis ay la galeen shirkad ajaanib ah, taasoo sonkorta soo rogaysay, sonkor u soo diraysay shirkadda. Magaaladana xilligaa waxaa ka jirtay sonkor la'aan oo sonkorta kala go'nayd. Maamulka shirkaddu waxay u arkeen heshiiskaasi inuu ahaa heshiis muhiim ah, lacagtana in aroornimadka la diro. Takarna uu saxeexayay lacag diridda. Haddii xilligaa la saxeexi waayo oo lacagta la diri waayana shirkaddaas heli weydo inuu heshiiskaasi sidaa ku khasaarayo, shirkaddana khasaaro badani halkaa ka soo gaadhayo. Inankii Takar ahaa aroortii hurdo dheer buu galay mar hadduu xaloo dhan saamilay lahaa. Inankii telefoonkiisii aad baa loo soo garaacay oo maamulkii shirkadda iyo shaqaalihiiba soo garaaceen. Inankii telefoonkii muu qaban. Waa nin xaloo dhan soo jeedo arooska soo jeeday. Fikir dheer iyo jacaylna iska galay. Kadib waxaa dhacay in markii dambe markii laga quustay darawalkii shirkadda loo soo diray Takar gurigiisii. Takar baa la soo toosiyay shirkadda sidii lagu geeyay. Markii maamulkii ku yiri maxaa kugu dhacay aaway shaqadii lagu igmaday, wuxuu ku jawaabay hurdo ay la tagtay iyo hurdo. Maamulkii aad iyo aad buu u cadhooday. Shaqaalihii weji xun bay ku wada eegeen. Maxaan idhaahdaa waxaa laga ashkatay oo kale nin shareholder shirkadda ku ahaa inuu sidaa sameeyo heshiiskii khasaariyey. Waxay u qaateen maamulkii shirkaddu inuu macluumaadkii shirkadda dibadda u saaray, fikraddii cid kalena ka iibiyey heshiiskii, ogaanna shirkadda u khasaariyey. Takar weji gabax ayuu kala kulmay shaqaalihii, maamulkii aad baa loogu wada cadhooday. In yar buu shirkaddii joogay, markuu arkay inaan loo weji samayn uu iska soo rawaxay. Markaa wuxuu ku fikiray uu yidhi mar haddii shirkaddii iyo shaqadii bay dhaaftay yaanu jacaylkii dhaafin. Inantii buu halkii fikirkiisii kasii waday uu ka fikirayay Hodan iyo sidaad ula kulantaa iyo halkeed kala kulantaa. Maalmo kadib wuxuu tagay xaafadooda agteedii. Waxaanu qoray waraaq uu leeyahay walaal waxaan doonayay inaan kula hadlo, fadlan nambarkayga la soo hadal. In badan buu guriga agagaarkiisa iska taagnaa oo uu joogay bal in ciduun ka soo baxdo. Markii waxaa soo baxay Hodan iyo inan kale dukaan bay doonayeen alaab ka soo iibsadaan uu iska daba galay. Kadibna sidii wax waalan baa dukaankii markii ay ka soo baxeen uu ku hor sugayay, waraaqdii intuu gacanta uga dhiibay uu ka cararay. Maanta intaasay noogu joogaysaa sheekadu. Asalaamu calaykum waraxma. Fadlan channelkayga ku soo biira, waad mahadsantihiin.